adbakiina taagdarane taageero weligiine Soomaaliya amarato kulan balaaran oo isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaalida ay ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika kaasoo loogu magac daray kulanka maalinta midnimada iyo wax wada qabsiga Soomaalida South Africa. kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida dalkani Koonfur Afrika sida aqoon-yahaniinta, culimada indheergaradka, ururka dhalinyarada, kan haweenka iyo ardayda wax ka barata jaamacadaha wadankani Koonfur Afrika. sidoo kale waxa kulankani ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda kumeel gaarka Soomaaliya iyo dawladda South Africa waxaana kamid ahaa mas'uuliyiintaasi wasiirka macdanta iyo tamarta ee dawladda kumeel gaarka Soomaaliya Mudane Cabduqaadir Maxamed Ducisow madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle Fuuri Malaboqo oo ah u qaabilsanaha dawladda Koonfur Afrika arrimaha Soomaaliya Faazu Garden oo isna ka socday hay'adda dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka waan hay'adii qabatay shirkii Baadigoob kaasoo lagu qabtay dalkani Koonfur Afrika 30 bishii May ee sanadkan Idris Moloto oo ka socday ururka talada haya ee wadankani ANC madax ka socotay jaaliyadda Carabta ee dalkani Koonfur Afrika wafdi ka socday dawladda Turkiga iyo marti sharaf kale oo badan intii uu socday kulankani ayaa waxa lagu lafaguray looga wada hadlay arrimo ay kamid ahaayeen in looga wada hadlo dhibka Soomaalida soo gaaray iyo faa'iidada ay u leeyihiin dalkani South Africa sidii ay Soomaalida u dhaxgali lahaayeen bulshooyinka reer Koonfur Afrika iyo in la furo wada hadal u dhaxeeyo Soomaalida iyo South Africaanka sidii Soomaalida looga caawin lahaa dhinacyada sharciga caafimaadka iyo waxbarashada waxaa xusid mudan in ay suuro geliyeen inuu qabsoomo shircaynkan oo kala ah shirkado ay iska leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed kuwaasoo kala ahaa Ganjab Investment, Salama Cash and Carry, Salahuddin Cash and Carry iyo Amal Shopping Center oo dhammaan ay iska leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed iyadoo dhinaca kalena ay hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga CRD oo khibrad u leh arrimahan oo kala ay shirka ka caawisay xagga farsamada iyo isku dabridka waqtigu aad u yar darteed oo koldowna uu soo gali doono hadduu aal idno ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Cabdiweli in telefoon halkan idinku la hadlo annaan idinku soo dhaweeyo ayaan waxaan rabaa intuu soo galin laba kelmadood oo gaagaaban inaan idinku raado marka hore dalka Soomaaliya wuxuu ku burburay midnimo iyo muwaafaq darro darteed haddaan qurbaha u soo baxnayna hanaga muuqato midnimo iyo muwaafaqataas waa idinku daarmaya waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo xukuumadda Soomaaliya inaad u tihiin xoog la tirsanayo haddii noqon lahayd maskax ka maqan haddii noqon lahayd xoog ka maqan wax badan dhacayo adigoo socoto ayaa timid meeshan dukaan baa furatay nolol baa ka samaysatay daa laftiga success way laakiin successkaas ma sii jiri karo iyadoo wax ku difaac lahayn maanta marka Prime Ministerkii Soomaaliya inuu meeshan ka hadlo message xoog leh wuxuu u dirtay Pretoria dadkan dad bay leeyihiin waa macnaheedu muhiimad khaas ah leedahay marka kuma xirna marka Prime Ministerku dawladdiisa waan jeclahay kuma xirna waxay taagantaa maanta jiritaankaaga ay taagantaa adoo Soomaali ah marka umbrellada qofka inuu maanta yimaado oo meeshan ka hadlo ummadan cid u hadli jirta malaha marka in la yiraahdo waa difaacaneynaa ummadeena waa difaacaneynaa Prime Ministerka inuu meeshan ka hadlo annagana sharafay noo tahay qofka Soomaaliga idinkana sharafay idin tahay badbaadadeena ku jirto waxaan ugu mahadceleynaa Dr. Cabdiweli in uu asagu ku jiro shir ka soo baxay shirku joojiyo oo wafdi Washington Soomaaliyan la hadla yiraahdo guddigii shirkiisa uu ku noqdo xaqiiqda waana sharfay Ilaahay sharfa asagana haddii qofka kale oo Soomaaliga xasdeeyo oo dhibaateynayo adigana meel ma gaarayst xasidnimadu meel ay nageyn kartaa malaha dareen ka saar fadlan waxa kale laga rabaa mas'uuliyad ku saarnaa waxay tahay shacabkan dad hogaamiyo dad baa dad u ah idinka dad u ah waa inaad isku tagtaan ummadda wax u qabataan waa idin mahadcelinaa aad u mahadsantiin that the Prime Minister called to address you in the meeting just to show how important this is. Very sorry for what happens to the Somalis in South Africa, but we are trying very hard to educate our own people. So this is really the reason that we have established this Baadigoob Forum. When we talk about rules, yesterday I was arguing with some of the organizers because they were saying to me, oh, we want South African police to come and protect us. So you, Malebo, can you speak to them? I said, no, you are here in South Africa, talk to the police. Feel free, you are in South Africa to say you are here, you
si kastaba ahaatee kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay tiraintan leega isku timaado jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkani Koonfur Afrika. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.